Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu eedeynaya arrimo dhowr ah. Haddaba arrimahaasi maxaa ka mid ah barnaamijkeena ayaa daawadayaal ku soo qaadan doona. sidoo kale daawadayaal waxaan halkan idinku soo gudbi doonaa loolanka kuraasta hoob 147 iyo hoob 138 Mahad Salaad Cali Yare iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku loolamaya falaqanaya daawadayaal idinkaga warbixintan ayaan idinku soo koobi doonaa. hayeeshee intaan gudagelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanaya muuqaalkan like saarto labada agta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka furan ee gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena. suldaanka beesha Habar Cafan oo ka mid ah beelaha Dir Waqooyi Suldaan Abiib Maxamuud oo shir jiraayad ku qabtay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ku eedeeyay in uu boobayo kursiga hoob 215 oo ka mid ah kuraasta beeshiisa ee golaha shacabka. suldaanka ayaa sheegay in laga been abuurtay oo magaciisa lagu saxiixay kursigaasi markii dambena ay ogaadeen in Ra'iisul Wasaare Rooble uu yahay go'aamiyaha kursigooda. sidoo kale suldaanka ayaa sheegay in ilaa dowladii lagu soo dhisay Carta uu saxiixa beesha soo ahaa balse hadda go'aan laga gaaray mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee beeshiisa iyadoo aan waxba laga weydiinin. beesheenu 3 kursi ayay leedahay, mid ka mid ah waa la musuqmaasuqay. muddo dheer ayaan ka daba wareegaynay kursigaasi, laakiin kadib waxaana loo sheegay in liiska cuqaasha uu soo qoray Ra'iisul Wasaare Rooble. waa yaabe masuldaankii beesha ayuu yiri Suldaan Abiib Maxamuud. sidoo kale suldaanka ayaa sheegay in guddiga doorashada markii ay wax ka qaybiyeen arrintan loo sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu uu soo gudbiyay liis uu ku jiro magaciisa Suldaan Abiib, wuxuuna arrintaasi ku tilmaamay dulmi laga galayo beeshiisa. shalay Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu lahaa doorasho boob maya, isaga ayaaba boobka nagu bilaabay. kursigeena sacad ayuu u yiri aniga qaatay, mas'uuliyiintii iyo dadkii u tagay ayuu sidaasi ku soo yiri ayuu hadalkiisa ku sii daray Suldaan Abiib. suldaanka ayaa cadeeyay in kursiga hoob 215 uu ka boobay Ra'iisul Wasaare Rooble isagoo uga dacwooday dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka. dulmi, boob iyo dhac ayaa naloo geystay, mana yeeleyno. kursigaasi Rooble ma leh, cid xoog ku qaadan kartana ma jirto ayuu yiri. Suldaan Abiib ayaa sidoo kale sheegay in ergada lagu qoray kursigaasi ay ku jiraan xubno Itoobiyaan ah, ergo Xabashi ah ayaa lagu qoray iyo hawiye suuqa laga soo aruuriyay. ma waxaas baan yeeli karnaa? ninka loo qoray kursigana ma garanayno cid uu yahay ayuu yiri. ugu dambeyntii suldaanka ayaa sheegay in boobkaasi aysan ogolaan doonin oo meel kasta ay ka dacweyn doonaan Ra'iisul Wasaaraha, isagoo Rooble ugu baaqay in masiirka kursigooda hoob 215 uu soo celiyo. musharaxiinta kursigaasi hoob 215 waxaa ka mid ah Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo 4 sano la soo dhaafay ka tirsanaa golaha aqalka sare ee Soomaaliya. Suldaan Abiib ma uusan xusin magaca shakhsiga uu sheegayo in Ra'iisul Wasaaruhu u dhacayo kursigooda. markaana daawadayaal haddaan ogno loolanka kuraasta hoob 147 iyo hoob 138 Mahad Salaad Cali Yare iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. galmudug ayaa dhawaan sii deysay 21 kursi oo ka hartay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka, waxayna ka mid ahaayeen 16 kursi oo golaha shacabka ah oo loo qorsheeyay in lagu doorto caasimadda galmudug. 5 kursi oo hadda ka hor halkaasi lagu doortay ayaa waxaa qaarkood laga keenay dood xoog leh oo xataa saameysay dowladda dhexe. kuwa hadda ay soo dhajisayna waxaa ku jira qaar si weyn loo hadal hayay waqti dheer lana sugayo doorashadooda. warbixintan waxaan ku eegaynaa labada kursi ee laga leeyahay magaalada Guriceel ee hoob 147 iyo hoob 138 kuwaasi oo xiiso weyn xambaarsan. kursiga hoob 147 waxaa in muddo ku fadhiyay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad
oo 5 sano ee la soo dhaafay ahaa mucaarad aan isqarin wuxuu talo iyo tabar ku darsaday dariiq walba oo lagu diidanaa nidaamka waqtiga ka dhamaaday ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Mahad oo ka mid ah xubnaha xisbiga UPD ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu sanadkan wajahayaa loolan culus oo kursigiisa ah. Hardanka ugu weyn wuxuu kaga imaanayaa ninka dhalinyarada ah ee Cali Yara Cali oo hadda ku magacaaban gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir. Cali oo waqti dheer ka mid ahaa taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo ayaa waqti dhow lagu soo daray nidaamka dowliga ah. Xilka gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir iyo fursadda ganacsi ee jaadka laga keenay Itoobiya waxay ka dhigan tahay in uu Cali dhaqaale ahaan u diyaarsan yahay in uu u tartamo sanadkan kursigaasi. Hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo kursigan gacanta ku haya uma badna in uu qof u boobi karo marka la eego foojignaanta iyo abaabulka reerka kursiga iska leh. Wax walba ayaa macquul ah haddii la isku dayo in reerka kursigan iska leh xoog lagu dayo. Waxay u badan tahay in kursigan si toos ah loogu tartami doono. Qoorqoor iyo Mahad Salaad waa isku dhawaayeen wixii ka dambeeyay dagaalkii Ahlu Sunna looga saaray magaalada Guriceel kaas oo Mahad Salaad uu maamulka raacsanaa halka Cali Yare lagu eedeeyay in uu jiray dhanka Ahlu Sunna. Waxaa Cali culays ka dhigayo ballanta doorasho ee u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Markii dhanka federaalka la eego waxaa isku dhow Qoorqoor iyo Cali Yara Cali, balse markii danta Galmudug la fiiriyo waxaa isku dhow Mahad Salaad iyo Qoorqoor. Xaaladahaasi waxay iftiiminayaan in kursigaasi uu xalkiisa culus yahay. Ganacsatada waaweyn ee reerka kursigan iska leh ayaa iyaguna waqti dheer talo ku lahaa kursigan. Waxaa la sheegaa in ay Mahad Salaad taageersan yihiin, laakiin marka la eego xaaladda uu kursigu wajahayo sanadkan waxay ku qasban yihiin in ay ka shaqeeyaan in doorashadu noqoto mid furan oo loolanka kursiga uusan isku bedelin foodo. Kursigan waxaa sidoo kale raadinayo siyaasiga Cabdi Nuure Siyaad, nin la taliye ka ah xafiiska ra'iisul wasaare Roble oo lagu magacaabo Ashkir, wasiirka qorsheynta Galmudug Cabdi Naasir Geelle iyo xubno kale. Doorashada kursigan mar waxaa loo arkaa mid xiiso leh marka la eego shakhsiyaadka ku loolamaya, marna waxaa loo arkaa mid halisteeda leh haddii uu maamulku isku dayo in uu si qaldan u maareeyo. Kursiga labaad ee isna xiisaha leh waa Hoob 138. Kursigan waxaa 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay ganacsade Saciid Nuur Giriish. Waxaa si weyn loo dhaleeceeyay matalaadiisii 4 sano ee la soo dhaafay. Kulamo reerka kursigan iska leh ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxay ku iclaamiyeen baahida isbeddelka. Dadka kursigan u sharaxan waxaa ugu horeeya hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kaas oo 5 sano ee la soo dhaafay ahaa mucaaradka ugu weyn ee ka soo horjeeday maamulkii Farmaajo. Warsame oo mar la isku dayay in la qaarijiyo markii gurigiisa lagu weeraray waxaa la sheegay in reerka go'aansadeen in kursiga isaga la siiyo. Hase yeeshee sidaas oo ay tahay weli nidaamka madaxweyne Farmaajo waxaa lagu eedeynayaa in ay beegsanayaan Cabdiraxmaan oo ay musharaxiin kale lacag soo siiyeen si ay kursiga ugu qabsadaan. Sidoo kale Qoorqoor ayaa la sheegay in ay Villa Soomaaliya ku cadaadinayso in uu sameeyo dariiq walba oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame lagu dhaafin karo kursigan, balse arrinta la dhaafi karin waa inaan kursigan loo sameyn karin ergo been ah oo aan la boobi karin. Sidoo kalena ay adag tahay in reerka lagu qanciyo in ay kursiga u diidaan Cabdiraxmaan oo ay og yihiin wixii dhibaato iyo is-hor istaag lagu sameeyay 5 sano ee la soo dhaafay. Kursigan wuxuu ku jiraa kuraasta dabka ku ah Qoorqoor ee dhalin kara xiisadaha amni haddii la isku dayo in la boobo. Inkastoo la sheegay in reerka isku raaceen in kursigan la siiyo Cabdiraxmaan, haddana musharaxiinta kale ee kursigan raadinayo waxaa ka mid ah Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade, nin wasiir ka ah Koonfur Galbeed, iyo xildhibaanka hadda ku fadhiya kursiga Saciid Nuur Giriish. guud ahaan daawadayaal waa inageynta warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media aan ku leenahay YouTube-ka. muuqaalkan laakiin oo subscribe inoo sar channelka fura gambalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino.
sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo warbixintan mid lacayna inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.